إنا لله وإنا إليه راجعون. warar goor dhaweyd soo gaadhay telefishinkan Saab TV ayaa sheegay in uu geeriyooday allaha u naxariistay General Jaamac Maxamed Qaalib oo ku magac dheeraa Jaamac Yare. allaha u naxariistay marxuumka ayaa ahaa nin si weyn loogu yaqaano siyaasadda guud ahaan Soomaalida, isla markaana ka soo shaqeeyay ciidamada gaar ahaan dhanka militariga iyo booliiska ka hor intii aanu ku biirin siyaasadda. General Jaamac Yare ayaa ciidamada Soomaalida ka soo noqday Major General, isagoo sidoo kale loo magacaabay madaxii booliiska ee Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga Somali Democratic Republic. intii uu ku jiray dhanka siyaasadda, sidoo kale waxa uu marxuumku soo qabtay jagooyin wasiirnimo oo ay ka mid ahaayeen midkii arrimaha gudaha, shaqada iyo arrimaha bulshada, wasiirka dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga, iyo wasiirka gaadiidka, iyadoo markii uu howlgab ka noqday dhanka siyaasadana uu u jeedsaday qoraalka iyo tacliinta, waxna ka dhigi jiray qaar ka mid ah jaamacadaha. kadib markii uu soo baxay warka geerida allaha u naxariistay General Jaamac Maxamed Qaalib, waxayse soo taraysaa tacsida ay u dirayaan mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah, siyaasiyiinta dalka iyo kuwa madaxa bannaan, iyadoo shaqaalaha iyo maamulka telefishinkan Saab TV-na ay tacsi ka dirayaan geerida allaha u naxariistay General Jaamac Maxamed Qaalib, ilaahayna uga baryayaan inuu jannatul firdawsa ku arsaaqo. Axmed Maxamuud Yuusuf, telefishinka Saab. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 1 5 eber.